habeenka halkaraan iyo hal abuurka hirgalay oo bishiiba ay hal mar qabtaan naadiga akhriska qoraalka halkaraan oo ah naadi mar walba dhiiri galiya dhalinyarada hal abuurka qoraayada aqoon-yahanada iyo cid kasta bulshada wax ku soo kordhin karta ayaa habeenkii xalay caweysin meeqaamkeedu sareeyo waxa ay u qabteen bulshada aqoon-yahanka iyo dhalinyarada gobolka Togdheer iyagoona uu halkaasi ku soo bandhigay habsooganeedkiisa aqoonta rabbi ku manaystay hal abuurka daada yar le Abwaan Maxamed Galeyd caweysinkana ay soo camireen mas'uuliyiin dhalinyaro aqoon-yahan oo ina soo qaban qaabiyeen naadiga halkaraan intii aan la gudagelin habsooganeedkii hal abuurka daada yar le Maxamed Galeyd ayaa waxa hadal la dhiirigelina halkaasi ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd mas'uuliyiin ka socotay ururada ka dhisan gobolka Togdheer mas'uuliyiin ka socotay naadiga akhriska iyo qoraaga halkaraan waxaanay yiraahdeen waxa farxad in maanta u baxan qaaliga ee reer Burco ee aqoontiya ee suugaaleydiya in naadiga halkaraan oo qiimo weyn ugu fadhiya in halkan kala soo qayb galo aad iyo aad baan u soo dhaweynay uguna mahadnaqaya waxa weeyaan kulliga gobolahan gobolkeenu taariikh buu lahaa Tafi Cismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco maadaama wanaagii ku hadlayo waa naadi akhriska qoraal waa naadi markii akhriska qoraal koobsanaya dhammaan waxa ay dhalinyaradu ka wada duwanayaan ninka waxa weeye in a morning time buugii qalinka soo qaadanaya iskuulka tagaya hadalku leeyahay ujeedadii hadalka uu leeyahay waxa weeye in wax ay barri muuqdo haddana stage halkaraan waxa uu taagantay inay idinka yihiin عندنا وحوي وما حوي finance برمسيو أما بمعين كما يرانكران وحكي يوتاي تاي وحوي ما هي هذه أي بشر. isna geestiisa halkaasi ku soo bandhigay xigmadii rabbi ku manaystay bulshadii aqoon-yahanka ahayd ee halkaasi ku sugnaydna uga faa'iideeyay hal abuurka daada yar le Abwaan Maxamed Cabdilaahi Galeyd rajada khayr baa ku xidhan riyada waa beeniyaa khiyaaliga raacdadii runtan kaga baarsado ruuxdayda waxaan faraa inaan ahay raasamaal adoon rabbigiisa jecel dartii uu rukuucayo rasuulkiisana adeeca intuu raxmadiisa tuugo wixii uu reebay diida wixii uu farayna raaca anigu ana iska hadlay marka anigu kama raaliyi inaan rasa beela iyo dumar u riyaaqo naftayda haranka baro inaan rootiga cunaan rumaanka ka doorbida Qaadan Maxamed shabakada caalamiga Wadweyne News magaalada Burco.